Asalaamu calaykum soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan rajeynayaa maalintaada inay ku tahay maalin qurux badan. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqato, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa hore noola joogtay oo familka iyo asxaabta ka mid tahayna, like noo saar, asxaabtaada noo sii share gareey si dad badan ay kaga faa'iidaan. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cunto siinta cunuga sanad ilaa iyo 3 sano oo jiro. Waxaa jirta hore fiidiyo aan kaga soo hadalnay oo ahaa jadwalka cunuga sanadka ilaa 3 sano quraacdiisa ah ayaa waxaan kaga soo hadalnaa muuqaal hore. Marka muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa jadwalkiisa oo dhameystiran oo ah cunuga markuu sanad jirsado ilaa iyo da'da 3 sano uu ka gaarayo. Jadwalkiisa cuntada ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan. Marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysan doontaan. Cunuga jadwalkiisa cuntada horta maalintii waxaa loo qaybinaa ilaa iyo 3 oo ah maxaa la dhahaa in 3 ugu waaweyn oo quraac iyo qada iyo casho iyo 2 oo ah in maxaa la cunuga subaxii quraacda iyo qadada inta u dhaxaysa mar asiinaysid iyo mid kale oo ah qadada iyo cashada inta u dhaxayso mid kale asiinaysid. Marka labadan yar yar oo quraacda iyo qadada inta u dhaxayso iyo qadada iyo cashada inta u dhaxaysa ma ahna cuntooyin adag iyo asiinaysid, laakiin waa qudaar iyo faakiho iyo waxyaalahaas in asiinaysid cunuga. maxaa la dhahaa korinshihiisa iyo jirkiisa u baahan yahay in asiinaysid waaye. Laakiin tan kale oo ah quraacda qadada iyo cashada tan kalena 3daas ayaa loo qaybinaa. Marka jadwalkiisa cuntada 3 ilaa 3 sano uu ka gaarayo sanadka ilaa 3 waxay noqonee 5 waqti oo maxaa la dhahaa cunugii uu cunto qaadanayo in u dheer yihiin caanooyinkii iyo maxaa la dhahaa wixii cabitaan aan sii lahayd. Jadwalka tan koowaad horta waxaa waaye cunuga markii subaxii uu waaga bariyo oo cunuga cunto siinay sidoo kale waxyaalaha sokorta iyo nashow bahalka ay ku badan yihiin waxyaalaha sokorta iyo ku badan waxaa haboon cunuga in aad siisid maxaa la dhahaa maalinta gelinka dhexe ama gelinka dambe oo kale, laakiin subaxii hore oo kale markuu hurdada ka soo kaco aadan ku bilaabinin. Subaxii hore oo kale cunuga inaad siisid fiican waxyaalaha carbohydrate-ka ah sida maxaa la dhahaa inaad rooti u samaysid cunuga, inaad maxaa la dhahaa ceesh iyo sabaayad iyo bariis iyo waxyaalahaas inaad u samaysid waxyaalaha carbohydrate-ka inaad siisid cunuga. Haddii maxaa la dhahaa oo iyo maxaa la wixii aad ku siin kartid oo kale jadwalka subaxdii hayna taas noqdo. Waxaa qurux badan oo kale in jadwalkiisa oo kale qadada oo kale maxaa la dhahaa cunuga markaa siinaysid aad ugu dartid borotiinada oo kale sida maxaa la dhahaa hilibka gaduudan, malayga oo kale, doorada oo kale, hilibka shimbiraha oo kale haddaad heli kartid aad ugu fiican yahay ilmaha korinshahooda hilibka shimbiraha. Haddii hilibka shimbiraha uu heli kartid oo kale maxaa la dhahaa waxyaalahaas oo kale haddaad u heli kartid ukunta oo kale maxaa la dhahaa aad ugu fiican tahay ilmaha oo maxaa la dhahaa jadwalkooda cuntada waxyaalaha cunug cuntada aad ahaan waxaa haboon inuu jadwalkiisa u qaybsanaada carbohydrate-ka cunuga oo maxaa la dhahaa ugu baahan yahay waxyaalaha oo jirkiisa ugu baahan yahay oo ka qaadanayo energy daaqay wuxuu ugu baahan yahay borotiinaadkan oo cunuga oo ka qaadanayo waxyaalaha korinshaha lafihiisa iyo murqihiisa ay kaga baahan yihiin oo jirkiisa u baahan yahay oo ka qaadanayo iyo qudaarta iyo faakihada oo cunuga jirkiisa wuxuu u baahan yahay oo ka qaadanayo. Marka waxaa haboon nashawiyaad kaliya ama carbohydrate kaliya inaadan cunuga cunto uga dhigin. Inta badan Soomaali jadwalkooda marka fiirisid sidoo kale waxaa arkaysaa in cunuga subaxii hore quraacda canjeerada dadka cunayaan gees oo ka cuno, qadada bariiska la karsanayo wax ka cuno, cashada haddii oo baasta ama digir iyo reerka ay karsanayaan oo wax ka cuno oo cunuga asaga dhanba jadwalkiisii uu ku badan yahay carbohydrate-ka cunuga borotiin badan uusan helaynin, fitamiino uusan badan uusan maxaa la dhahaa jadwalkiisa cuntada aysan ku jirin, qudaar iyo faakiha badan cunuga inuusan helaynin oo kale ay u badan tahay jadwalka. Marka jadwalkaas oo kale cunuga korinshihiisa ma anfacayo oo maxaa la dhahaa waa laga qurux badan yahay. Waxaa wanaagsan oo kale subaxii markaa quraacdiisa siinay sidoo kale in maxaa la dhahaa carbohydrate horta ma ka marnaaysid haddii oo maxaa la dhahaa rooti u sameynay sidoo kale qamadiga oo kale ugu sameeyay fiican haddii cunuga uusan jiran uusan ka qaadaynin maxaa la dhahaa burka cad waxooga waa laga qurux badan yahay haddii aad ka maarmi kartid inta xad inaad ka maarantid fiican oo maxaa la dhahaa kan qamadiga caadiga ugu bedeshid maxaa la dhahaa marka siinay sidoo kale waxyaalaha carbohydrate-ka ah haddii oo ay dhacdo kale inaad ceesh ama sabaayad aad samaysid sidoo kale quraac ahaan aad samaysid okay waaye. laakiin waxaa haboon waxa lagu daraayo kale cunuga inay u noqotaa wax maxaa la dhahaa borotiin in wax uu ka heli karo kale. Haddii subaxii oo kale aadan u sameyn karin inaa maxaa la dhahaa hilib iyo inaad qada kaga dhigto quraacna kaga dhigto aadan heli karin oo kale axsan waxaa haboon waxa quraacda aad siinay sidoo kale haddii canjeero u dubaysid ama maxaa la dhahaa ceesh sabaayad aad siinay sidoo kale inaad ukun ku siisid لأن عنق بروتين ونقني أو بروتين وكهلا ما نقني كربوهيدرات كلية عنق نوكو قرعة مرك أقعد سيني سدوك الهدية بريس كرسو كله وجيران وحابون إن محلها هلب كجدون أو قدرت أما ملاي أو قدرته هل أنت كلينا مفيعنه oo inta badan in cunuga maalin kasta maxaan lahaa hilib geel ama hilib ari oo kale cunuga maalin kasta la siiyo ma qurux badan waxa ka qurux badan cunugii waxyaalaha borotiinka leh ina isugu bedeshidoo kale
isbuuc 3 maalin ama 4 maalin oo kale kasii hilibka gaduudan laakiin 2 maalin oo kale waxaa kasoo gelisaa malaay usoo geli laba isbuuc dambe oo kale 2 maalin waxaa usoo gelisaa oo kale doorada waa haddii aadan u awoodin in cunuga maxaa la dhahaa maalin dhaaf oo kale maanta inaad maxaa la dhahaa siisid malaay berri hilibka gaduudan oo xoolaha aad siisid saa dambe oo kale doora aad siisid haddii aysan kuu suuragelaynin ugu yaraan isku day 7 maalin inaadan hilibka gaduudan u wada dhigin oo maalin aad usoo gelisa malaay maalin aad usoo gelisa maxaa la dhahaa hilibka doorada oo kale cunuga si uu jirkiisa maxaa la dhahaa waxyaalaha uu baahnaayo dhan korinshihiisa iyo maxaa la dhahaa jirkiisa wuxuu u baahnaa oo mid walba uu kaga qaato oo hal mid joogto aadan uga dhigin midna ogow haddii hal cunto oo joogto ah ka dhigatid oo aadan bedelinin waxay leedahay in anemia ay kugu keentaa liana maxaa la dhahaa jirkaada waxyaalo kala duwan u baahan yahay wixii kala duwanaa meelihii kala duwanaa laga heli lahaa adigana ma aadin marka just hal cunto markaas isku koodid oo maxaa la dhahaa aadan waxyaalo kala raadin waxay u badan tahay in qofka uu anemia ku imaato ilmaha markay yar yihiin aad iyo aad ayay ugu nugul yihiin in maxaa la dhahaa anemia ay ku timaado marka hooyadoo kale waxaa haboon in haddii subaxii cunuga karbohaydrate ay siinayso ugu yaraan hal xabo ukun ee maxaa la dhahaa ku siiso si maxaa la karbohaydratekii borotiin u raacay oo naqato haddii qadadoo kale cunuga bariis iyo baasti iyo waxa uu karisoo kale ugu yaraan isku day ayadana borotiin u raacsi sidoo kale waxyaalo maxaa la dhahaa cagaar iyo ansalaati waxaan ugu dirtid haddii aysan dhici karin oo kale in maxaa la dhahaa casiir oo maxaa la dhahaa cabitaan u shiidid biyana aadan kaga dhigin maadaama maxaa la dhahaa karbohaydrate ay ku badan tahay borotiin fiican aysan qadada hilib fiican cunugii maxaa la ilmihii ku filan aysan ku jirin oo kale aad dhacdo waxaa haboon in maxaa la dhahaa khudaarta iyo faakihooyinka oo kale aad u badisid ama cabitaan fiican cunug ilmihii aad u shiidid si maxaa la dhahaa waxyaalihii ay jirkooda uga baahnaayeen kaga helaan maxaa la dhahaa cashadoo kale waxaa qurux badan cunto fudud cunuga dheefshiidkiisana u fudud maxaa la dhahaa karbohaydrate aan ahayn oo kale oo borotiin haddii heli kartid oo kale ama khudaar ama faakiho kale hadaa heli kartid inaa casho kaga dhigtid liana ilmaha habeenkii korinshahooda waxaa lasoo dayaa hormoonka korinshaha ilmaha marka haddii cunuga cuntadii oo qaatay uu dheefshiidka uu culays oo ka dhigayo kale cunto adag aa siiso kale oo maxaa la dhahaa habeenkii dhan waxaa dhacaysa marka in cunuga jirkiisa uu dagaal kula jiro cuntadan adkeed oo qaatay sida jirka uu burburin lahaa oo maxaa la dhahaa oo jirka uu kaga faa'iideysan lahaa inuu jirka ku mashquulsan yahay laakiin haddii ay jirto in cunuga cunto fudud aad siiso kale dheefshiidkiisa aan culays ku ahaynin waxaa laga yaabaa marka in xilli hore intee cuntadii la shiiday cunug jirkiisii ka faa'iideystay hormoonkiisii korinshaha lasoo deeyay cunugiis maxaa la dhahaa hurdo fiican uu galaa dhici karto laakiin haddii dheefshiidka culays oo ka jiro kale cunuga hurdadiisa xataa ma saxmayso oo maxaa la dhahaa cunuga hurdadiisa maxaa la dhahaa xoogoo qalal ayaa ku imaanaya marka waxaa qurux badan cashada cunug waxaa ugu dhigaysid inay noqoto cunto fudud maxaa la dhahaa si qalal uusan uga imaanin oo kale hurdadiisii hormoonkiisa korinshahan loo soo daayo oo cunuga korinshihiisa u wanaagsanaado marka waxyaalaha 4 saac oo kale qudraacdii qadinta u dhaxaysa ama qadi cashada u dhaxaysid inaa faakihooyin sidoo kale sida ansalaati iyo maxaa la dhahaa liime iyo maxaa la dhahaa qudaar aad soo jarjartay isugu dartid oo kale qadadii cashada u dhaxayso kale galabka 10 saac oo kale in ilmihii wax yar fudud aad siisid inta casho laga gaaro qudaar iyo faakihi isugu darsan ah si cunugii korinshihiisa waxyaalihii fitamiinadii nafaqada uu u baahnaa uga qaato marka haddii maalinta cunugii karbohaydrate uu helay jirkiisa ku filan borotiin uu helay faakihada iyo khudaartii uu helay casiiro fiican cunuga u shiidoo kale korinshihiisa uu dhammaystiran yahay wax kaagama baahno ilaa 5 jeer cunuga u baahan yahay sanad ilaa 3 sano uu ka gaarayo 5 jeer jadwal cunto ayuu cunuga kaaga baahan yahay waxaa kaloo jirta cunuga markuu sanad jiro oo asiin kartaa oo kale waxyaalaha ilmaha mamnuuca ka ah intay 5 sano ay ka yar yihiin sida sokor iyo cusbo inaa cuntooyinka ugu dartid oo kale laakiin aadan ka badanin inaa malab siin kartid oo kale iyo ukunta qaybteeda cadaanka ah inaa cunuga siin kartid oo kale cunuga markuu sanad gaar intaas buu u bilaabi kartaa waxyaalaha mamnuuca ka ah inta sanad uu ka yar yahay oo kale cunuga waxaa kaloo haboon hooyada iyo inay fiiriyaan oo kale maxaa la cunuga qofka hayso ama aabaha cunuga sanad haddii uu jiro kale maxaa la dhahaa ilkihii ma usoo bixin cunugii maxaa la dhahaa ma gurgurana ama darbiyada ma qabsana maxaa la dhahaa cunuga qoortiisa ma cishana marka haddii ay dhacdo in cunugaada 6 bil uu soo gaaro uusan qoorta cishanayn oo kale maahan inuu kadib dhacay cunuga waxaa la rabaa 4 bil inuu meelahaas 5 bil inuu qoorta cishto oo kale haddii laakiin 6 bil 7 bil soo gaaro cunuga uusan qoorta cishanayn maahan dib dhac ku imaaday laakiin waxaa laga yaabaa inay cilad kale oo jiro ama wax ka yaala ay jiraan cunuga uu kaaga baahan yahay inaad isbitaal geysid xaaladiisa caafimaad aad la socotid midna ogow inta uu cudurku cusub yahay haddii dhakhtar iyo maxaa la dhahaa daawo ala raasatid ilaahina baridid waxay u badan tahay in cunuga caafimaad loo helo laakiin mar cunugii cudurka uu ku tarax tagay oo maxaa la dhahaa meel xun uu gaaray waxaa laga yaabaa in cunuga xaalad aan wax laga qaban karin oo kale isbitaalka ala tagtaa marka waxaa qurux badan waalidka inay fiiriyaan insha Allah video waxaan soo geli doonaa haddii ilaah yiraahdo maxaa la dhahaa ilaa ay waqtiga cunuga wala dhihi karaa waxaas uu kadib dhaco kale
kasoo qaado karo gurguuradka waa kadib dhacay cunuga goormee la dhihi karaa socodka wuu kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunuga inuu fariisto wuu kasoo dib dhaca goormee la dhihi karaa ilkaha xilligii usoo bixi lahayn wuu kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunuga inuu qoorta cishto kale xilliga uu la dhihi kara xilligaas uu kadib dhaca waa goormee xilliga la dhihi karaa kale maxaa la dhahaa cunuga inuu hadalka uu hadli waayo kale hadalka uu kadib dhaco goormee naqan kartaa in cunuga hadalka uu kadib dhacay insha Allah waxaan isku dayaa inaan muuqaal ka soo sameeyo oo aan soo gari doonaa isku dayaa insha Allah marka aan jaanis helo marka insha Allah waxaa wanaagsan waalidka inuu cunugiisa la socdo xaqiisa maxaa la dhahaa korashihiisa isbedelkiisa inuu cunug la socdo si hadii xilliga loogu talagalay cunuga kadib dhaca waalidkii uu maxaa la dhahaa intibaah u leeyahay oo cunuga isbitaal u geyn karo maxaa la dhakhtar caruureed iyo dhakhtar takhasus kale uu la raadsan karo si maxaa la cunugiisa uu xilli hore caafimaad iyo wax ugu raadiyo ilaaha caafimaadka insha Allah muuqaalkaas oo isku dayi doona inaan soo sameeyo oo waqti aan u raadiyo soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe no sarga malaalkana furo hadii hore aan la joogtay like no sar asxaabtadan u sii share gareey soo dhawaada